kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina meel walba joogtaan waxaad leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha. barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Manchester City oo xalay si xun loo xasuuqay iyo waliba kooxda Arsenal oo ayaduna xalay badisay iyo Liverpool oo habeen hore sidoo kale soo badisay oo 20 dhibcood ku hogaaminaysa UEFA Champions League. haddaba kulamadaas iyo kuwa kaleento ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena inta uu socdo. fadlan sii share gareey oo haddii aad nagu cusub tahay follow inoo dheh, siina share gareey si ay asxaabtaada u gaaraan muuqaalkeena. like commentigana fadlan waa xagiina mahadsanidin. aynu ku bilaabay kooxda Manchester City ayaa xalay waxa ay u muuqatay in ay markaasi soo badin karto oo labada gool ee ugu horeyso markii ay dhalisay ayaa waxa ay noqotay koox oo u muuqata inay badin karto City oo laba gool leh in laga keeno oo loo saaro waa xal alu sahal ah oo aad iyo aad ay u adag tahay xaaladdu in markaasi ay suurtagal noqoto. qof waliba oo bini aadam ah ee dunidan dul saaran haddii loo sheego Manchester City oo weerar xun wada isla markaana laba gool ay leedahay ay ku hormartay ayaa in laga keeno loo saarinaya kama aqbalayo, waa dhagay faray. haddaba xalkaas iyo mid ka sii xun ayaa dhacay xalay. xasuuq xun ayaa loo geystay oo waxa ay sameysay Manchester City inay dhalisay laba gool ayaa labadaada ka sii labo la dhahay sidii turub la ciyaaraya ama taraq la ciyaaraya, dadka taraq ciyaaraya yaqaanay. haddaba laba gool ayaa markaasi in laga breejay laba kalena loo saaray, xaaladuna halka ay maraysaa. xaalkaasi waxa uu noqday mid alow sahal ah oo City waxa la arkayay Pep Guardiola oo marba nuuc noqonayo daqiiqad kastaba daqiiqadii ka sii dambeysay ciyaarta. waxa uu sheegay markaasi in City aysan ahayn kaliya gooldarada haysato in ay ahayd mid markaasi ay ayagu markaas sabab u yihiin, laakiin waxa uu Pep Guardiola oo sheegay in ay tahay gooldarada haysato Manchester City in ay la jaan qaadi waayeen kubadda cusub ee xilliga 2025ka la soo bandhigay oo ah kubadda ay ciyaaraan Brighton Albion iyo sidoo kale Liverpool, Arsenal iyo kooxo kale oo dhowr ah. kubadaha ay ciyaaraan inay la qabsan kareynin Manchester City xilligan. Manchester City kaliya waxa ay taqaanay in markaasi ay banooniga ay 90% ama 80 ay kubadda gacanta ku haysto lugtooda ku haystaan oo ay markaasi geliyaan dishootaha ma dilinta ganaaxa ee kooxda kale isku keenaan. laakiin xaalku waa uu iska bedelay sida oo dhan kale ayuu isu rogay, waana sababta keentay in kooxdaasi ay xaalkoodu aad u xumaado oo ay la qabsan waayaan ciyaaraha cusub. Arsenal ayaa xalay ciyaaraysay oo UEFA Champions League waa ay soo baxday si straight ah 16 dhibcood ay leedahay, kaalinta saddexaad ay ku jirtaa halka kaalinta koowaad ay Liverpool ku hogaaminayso 21 dhibcood 7 kulan oo la ciyaaray. sidoo kale Barcelona ayaa kaalinta labaad ku jirto 18 dhibcood leh. Arsenal ayaa kaalinta saddexaad ah oo ayaduna leh 16 dhibcood. haddaba si toos ah ayay markaasi Arsenal u soo baxday oo waxa kaliya haray hal kulan oo kulankaasina ay doonaysay in Arsenal ay ama bareejo ama badis raadsato, waana ku qasban tahay inay badiso sababtoo ah hoosta ayaa la isaga wada jiraa sida Inter Milan, AC Milan, Bayer Leverkusen iyo kooxo kale oo dhowr ah ayaa markaasi hoosta kaga jiro. waxayna markaasi u baahan tahay Arsenal inay badiso si markaasi ay si cad ugu soo baxdo kaalinteeda. sidoo kale Liverpool ayaduna way badisay habeen hore ay ciyaartay oo markaasi si aan caadi ahayn markaas u soo badiso unbeaten ayay ka tahay, waliba koox aan wali gool laga dhalinin sanadkan Champions League gruubyada waxay ka tahay unbeaten iyo waliba clean sheet ay ka hoggaansanaysaa oo shabaqeedu nadiif u ah goolna laga dhalinin walina aan laga badinin. labaduba waa isku haysataa 7 kulan ay dheeshay waa ay wada badisay oo 21 dhibcood ayay sidaasi ku haysataa. haye intii aanu dib ugu kulmayno barnaamijkiisa xiga waxa aan leeyahay waa saaxiibkeen Bariyo oo maalmahan idin ka maqnaa oo dib ugu soo laabtay xogaa arimo markaasi aniga qaas ahaa ayaa ku maqnaa. waxaan idin ka raali gelinayaa kala maqnaashaha aan kala maqnayn hawada ku kala maqnayn barnaamijkeena Sportiga maalintiiba aan halkan idin kaga soo gudbiyo. waan idin ka raali gareynayaa asxaabteeda qiimaha ee qaayaha mudan oo bartayda ku xiran. haddaba
haddii aad nagu cusub tahay oo muuqaalka dhamaadkiisna la soo gaartay fadlan follow inoo dheh page-ka si share gareey si oo muuqaalka meel dheer u gaaro followda iyo commentigana waa xageena fadlan like-ta noogu dadaala iyo commentiga waa dhiirigelin ayay inoo tahay mahadsanidin tan iyo inta dib u kulmi doono waa saaxiibkeen baariyo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh